markaad aadid shineemo waxaa laga yaabaa in filim ku saabsan musqulaha aanu noqon dooqaaga laakiin nadaafadda ayaa arrin looga hadlayo filim cusub oo bisha soo socota ay soo saarayaan Bollywood. Filimkan oo la yiraahdo Musqul waxaa jilaya actorka caanka Akshay Kumar. waa filim shaka jacayl ku saabsan balse ku saleysan dadaal uu wado ra'iisul wasaaraha India sidii loo heli lahaa musqulo dadka ku filan. Yasmin Ahmed ayaa ka warramaysa. hees ciyaar iyo qosol badan laakiin filimkan hindi ah wuxuu ka hadlayaa arrinta saxarada oo badanaa laga hadlin waa wax faa'iido leh dadkuna way fahmi doonaan waxaanu halkan uga jeedno ayaan filimkan ugu soo bandhignay oo ah hab ganacsi inaan wax ku fahamsiino waxay ahayd jilitaankii ugu dhib badnaa aan weligay jilay way igu adkeed inaan marada iska qaado oo matala anigoo musqusha fadhiyo $546 milyan qof ee Hindiya ma haystaan musqulo shaqaynaysa haween badan habeenkii ay musqusha u baxaan sida ay ugu badbaadaan khatarta ka imaan karta kufsiga ragga meel kasto ay musqusha u aadi karaan ammaankood iyo caafimaadkood dhibaato ma ugu aaminayso laakiin dumar aajiro oo uur leh mise caadada marka arrin badan oo haweenka quseeya ayaa jirto maxaa samayn kartaa 14 saac musqusha ma aadi kartid ra'iisul wasaaraha Hindiya Modi wuxuu bilaabay ololaha oo ugu magac daray nadaafada Hindiya ee sanadkii 2014 wuxuuna ka ballan qaaday malaayiin qoys fayadhowrka guriga wuxuuna taageerayaa filimkan uma baahna in filim weyn ay Bollywood ka samayso annaguna waxaan isleenahay ka qayb qaata sidii Hindiya ay u noqon lahayd meel nadiifa laakiin filimkan ma ku saabsana dhismada ee musqusha ee waa mid raba inuu bedelo fikradda bulshada kuwa filimkan sameeyey waxay rabaan inuu fariintan ay dadka gaarto sida ee Bollywood ugu dambeyntiina balnala daawo laba jirkan xirfadda leh Jet Limon oo degan Texas oo Mareykanka ah waxa muuqaal